السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waan idin salaamay walaalaha Soomaaliyeed muslimiinta ah meel walba adduunka ka joogtaan. waa marka la iiboogi loogu magac daray 4000 essential English words. boogi koowaad ayaan ku guda jirnaa maanta. Allah subxaanahu wa ta'ala hadoo idmaa waxaan jecelnahay inaan ka wada bilowno cutubka 17aad ee page-ka 4aad. aad ayaad u mahadsantihiin sida wanaagsan aad nagala qayb qaadanaysaan akhrinta buugani. fariimihiina wanaagsan ee ku dheehanta markaasi xushmad iyo walaaltinimo aad isoo gaarsiiseen waad ku mahadsantihiin. sida markaasi aad i taageerteen aad markaasi u soo dhaweyseen akhrinta iyo markaasi dadaalka badan ee aan gelinayo buugan aad ayaad ugu mahadsantihiin. waxaan jeclaan lahaa in walaalaha Soomaaliyeed kale ee danaynaya inay bartaan buugani aad gaarsiisaan insha Allah. ilaahay hadoo idmaa waxaan guda galaynaa akhrintii buugi. waxaan ka bilaabi doonaa markaasi cutubka 17aad ee page-ka 104aad. ereyga noogu horeeya maanta waxa uu yahay markaasi appreciate waa maqsuudid ama maqsuud waa eragaasi. qeexitaanku waxaa leeyahay to appreciate inaad ku macnaha maqsuuda something shay is to understand waa inaad fahantaa its good qualities tayadiisa wanaagsan inaad fahantaa ayaa markaasi lagu qeexay eregaani. tusaalaha waxaa la leeyahay I can appreciate waan markaasi ku maqsuuday the lovely scenery muuqaalka quruxda badan ee dabiiciga ah waan markaas ku maqsuuday ayaa la leeyahay. ereyga xiga waxa uu yahay available la heli karaa. if something haddii shay is available la heli karaa it means waxaa lala jeedaa you can get it shaygaas inaad heli kartaa. tusaalaha waxaa leeyahay there were waxaa jira many seats fadhi badan available laga heli kara in the room qolka. beat waa garaacis garaacidii maaha tani oo aan maalin hore soo qaadanay oo la yiraahday boundy ma ahayn. tan waa garaacidii qof markaad ka guulaysataa ama dadyo kale aad ka guulaysataa markuu tartan idin dhexmaraa guushii adiga haddii ay ku raacda ayaga waxaa uu imaana markaas guul daro adigana waxaa qaadatay guuldaradaas ayaga aad u saarisay marka taas waxaa lagu macnayn karaa inaad garaacday. to be someone inaad garaacda qof means waxaa la jeedaa to do inaad samaysaa better than wax ka wanaagsan they do inta waxa ay sameeyaan. tusaalaha waxaa leeyahay I managed waxaan maareeyay to beat inaan garaaco everyone qof walba in the race tartanka ku jira. ereyga xiga waxa waaye bright ifaya. if something haddii shay is bright or ifaya it shaygaasi shows wuxuu ku tusinayaa a lot of light nal badan ayuu ku tusinayaa. tusaale waxaa leeyahay the bright light iftiinka markaasi ifaya from ka imaanaya from ka yimid haddii kala the explosion qaraxa ka yimid heart wuxuu wax u geystay mise dhaawacay my eyes indhahayga. ereyga xiga waa celebrate dabaaldegid waa. to celebrate inaad dabaaldegtaa is to do waa inaad samaysaa something shay to show aad ku muujinayso daad iminkaasi an event dhacdo special inay qaas ku tahay. tusaale waxaa leeyahay we all dhammaanteena celebrated waan u dabaaldegnay when we heard markaan maqlnay the great news akhbaartii wanaagsaneed markaan maqlnay waanu dabaaldegnay. determine waxay noqonaysaa markaas go-aanshiso. qeexitaanku waxaa leeyahay to determine inaad go-aansataa means waxaa la leeyahay to choice inaad doortaa or make aad samaysaa decision go-aan. tusaalaha he tried wuxuu isku dayay to determine inuu go-aansado which one midda markaasi to eat varies oo markaa hore cuni lahaa. ereyga xiga waxaan leenahay disappear waa disappear waxaa waaye markaasi lumis. to disappear inuu lumo means waxaa leeyahay to go away inuu ka fogaado or not be seen inaan la arkinba. tusaalaha waxaa leeyahay the top of the building dhismaha markaas qaybtiisa kore is disappearing waa uu qarsoomayo looma jeedo in the clouds wuxuu ku qarsoomay daruurta. ls kale waa ereyga xiga waa ls kale
if you qeexitaanku waxaa leeyahay if you talk about haddaad ka hadlaysin something else shay kale you talk about something different waxaa ka hadlaysaa shay ka gedisani tusaalaha waxaa leeyahay I wanted waxaan rabay a bike baaskiil ayaan rabay for my birthday waxaan rabay maalinta dhalashadayda ayaan baaskiil rabay but laakiin I got something else wax kale ayaan behelayba ereyga xiga waa fair xaq ah ama cadaalad ah fair xaq ah ama cadaalad waxaa leeyahay ereygaasi describes wuxuu sharaxayaa treating inaa ula dhaqantaa someone qof in a way habkaasoo is reasonable or right hab saxan oo nidaamsan inaad qof ula dhaqantaa ayaa cadaalad la yiraahdaa tusaale he sold me wuxuu iga iibiyey his car gaarigiisii for a fair price qiimad cadaalad oo xaq ah ayuu igaga iibiyey follow waa qulqul follow waxaan dhahnay waa qulqul qeexitaanka waxaan leenahay to follow aan leenahay flow qulqulka is move easily waa inuu shay si markaasi fudud uu u dhaqaaqa and continuously misna suugu sii wataa dhaqaaqitaankiisa misna uu wataa in one direction hal jiha uu sii wataa dhaqaaqtiisa inta badan flowgani waxaa loo adeegsadaa dareerayaasha tusaale waxaa leedahay water flowed biyihii way qulquleen over waxay ku qulquleen the rock dhagxanta into the lake markaasi harta ayaa la leeyahay markaasi waxaan u gudbaynaa page-ka 105 ereyga noogu horeeya waxa uu yahay markaasi forward horay u socosho waay if you move forward horay haddaad u socotaa you move in a direction waxaad u socotay jihada in front of you ee hortaada jihada hortaada ayaa u socdaashay haddii markaasi forward aa samaysaa tusaalaha waxaa leeyahay when he saw markuu arkay his mother hooyadiis markuu arkay the baby canugii crowled wuxuu ugu guurtay forward dhankeeda mise toos to her dhankeeda ayuu u gurguurto si toosan ayuu ugu gurgurtay hill waa markaasi buur waa hill buurta hill andana hill buurta is around the area of a land waa dhul markaasi wareegsan it's higher than wuxuuna ka sareeyaa the land dhulka and around it was masuu ku wareersanaya oo ku wareey markaas uu ku wareegsan yahay tusaale waxa leedahay san qoraxda was rising way soo bixisay above wuxuuna ka soo bixisay the green hills buuraha cagaaran ayay ka soo bixisay level waa hair yaani waxa leeyahay qeexitaanka level hairka is a bond waa bar on a scale ee cabir daad cabirkaasoo measures lagu cabiro something shay tusaalaha please fadlan jeeg cabir the level heelka of the temperature heelkulka ereyga xiga waa loon cidla ah ama keli ah labadaas baan dhihi karnaa loon waa cidla ah ama keli ah ereygan waxaa jiro erey kale oo la macnaha isigana wax yar ku kala dugan yihiin oo ah alone iyo loon taana isku mid ah markaasi alone iyo loon waa isku macno laakiin isticmaalkooda ayaa ka yara galgadisan oo kale way kala gadisan yihiin loon taan oo kale haddii aan soo qaadano tusaale isigu waxaa la isticmaalaa ka hor magaca hortiis ayaa la isticmaalaa alone markaan soo qaadan waxaa la isticmaalaa kadib magaca ayaa la isticmaalaa labada sidaas ayuu ku kala yihiin markaasi waxaa leeyahay markaasi qeexitaanka if someone haddii qof or something is alone u yahay mid keliya they are the only one waa midka keliya of that kind ee noocaas ka jooga halka tusaale waxaa leeyahay lone man walked nin markaasi keliya ayaa lugeeyay lone soo maraya street wadada halkaani alone waxay ka bilaabataa ka bilaabataa ma aha laakiinse loontii hore nala siiyey waaye laakiin eedii sababta halkan ay u soo gashay waxa waaye markaasi waxaa bilaabmaya markaasi waxaa la isticmaalaa markaasi ereyga ka hor erey waliba oo consonants ah shibana ah ka hortiis ayaa la isticmaalaa dhib ma laha haddii ereyga uu yahay adjective uu yahay haddii uu noun yahay ama haddii uu yahay markaas adverb uu yahay ereygaasi
wax dhib saameyn uu ku yeelanayo ma laha. ereygan hadda anaga marka loan aan isticmaalayno waa erey adjective ah. erey adjective ah waaye, wuxuuse kasii bilowdaa l ayuu ka bilowdaa. lna waa consonant oo waa naqaanaa. tusaalahaasi ayaa markaasi ayaa inooga filan markaasi. marka waxaan kusoo gabagabeynaynaa xarafkan sababta oo a uga bilowday waxa waaye ereyga ayaa waxaa ka bilowdo l ka bilowdo oo ah markaasi shibano ah, waana ereygaasi waxa uu yahay waa adjective. marka sidaas ayaan leenahay. erey kale ee markaasi lagu qaldaa isna waa alone, isna waa adjective. halkaas ayaan ugu sii gudbaynaa waxba aan waqti noogu lumin. ereyga markaasi xiga waxa uu yahay waa badal, waa balli waay. badal balliga is a pool, waa barkad of a liquid oo ku jira dareere on the ground dhulka ku yaala. tusaale waxa leeyahay when the ice melted, markii markaasi barafka uu milmaa dhalaalaa, markii uu barafku dhalaalaa, it formed waxa uu sameeyaa markaasi a badal balli ayuu sameeyaa. barafka inta uu dhalaalo ee balliga sameynaya ma aha barafkan caadiin oo aan naqaano aan soo gadano lacagta aan kala baxno. waa barafka markaasi roob ahaanta u daa Allah subxaanahu wa tacaala roob ahaan u keeno waaye ee wadamada qaar ay ka daa. ereyga xig waa response, waa u jawaab celin. waa response, jawaab celinta is the answer, waa jawaab to question ee jawaab u ah, jawaab u tah su'aal u ah. response jawaab celinta is the answer, waa jawaab to a question ee su'aal. tusaale waxa leeyahay markii he asked wuxuu u warsaday if I was sad, haddii aan murugeysanahay. my response jawaabteedana was waxay ahayd no, maya. ereyga xiga waa season, waa xilli. waa season, waa xilli. season waxaan dhahan waa xilli. a season xilliga is a time, waa waqti of a year ee sanadka. waxaa leeyahay markaasi spring gu, xagaa summer oo ah xagaa, fall oo la yiraahdo sidoo kale autumn la yiraahdo, or ama winter iyo jiilaan. afartaas xilli ayaa la leeyahay, balse waa lagu kala duwan yahay dunida daafaheeda. afartaas xilli waa lagu kala duwan yahay. cidba waxay tirsataa markaasi bilooyin kala duwan ayay tirsataa. annaga Soomaaliya haddii aan nahay waxaan tirsanaa guga. guga waa xilli roobaad waaye. waxaana tirsanaa bilooyinka markaasi March, April iyo May, saddexdaas bil ayaan tirsanaa. xagaa isagana si la mid ah waxa waaye waa xilliyada roobka yar, waa sidaas xagaa lagu bixiyay, waana June, July iyo August. deerta si la mid ah waa xilli roobaad waaye, balse waxaa ka roob badan xilliga lagu jiro guga. deerta bilooyinka noocan waxa waa September, October iyo November. xilliga ugu dambeeya waxa waaye markaasi waa jiilaalka. waa xilliyada inta badana kulul ama si badana la dareemo qaleelka badana la dareemo iyo dabeelaha la dareemo. waa December, January iyo February. sidaa ayaa inoo tahay wadamada qaas, laakiin bilooyinkaas ayaga waa ay ka yar gedisan yihiin. wadamo ayaa sida springka gugo kale waxay tirsadaan September ilaa November, ay waxay u yaqaaniin gu ay u yaqaaniin. xagaa si lamid waxay u yaqaaniin December ilaa iyo February ay u yaqaaniin. wadamo qaar ayaa si lamid ah deerta waxay u yaqaaniin March ilaa iyo markaas May ay u yaqaaniin. jiilaalka waxay u yaqaaniin June ilaa iyo August, intaas ay u yaqaanaan. adduunka waa la kala gedisan yahay. sida Aasiya oo kale hadda 4 xilli inta annaga maadaama aan tirsan, iyagu waxay tirsadaan 6 xilli ayay tirsadaan. markaasi cimilooyinkaas faahfaahinteeda saas ayaan ugu gudbaynaa. waxaan leeyahay markaasi tusaale haddii aan u nimaano fall waa deerte is a warm, waa xilli markaasi diiran. is a warm season waa xilli diiran ayay leeyihiin. waxaan leeyahay marka fall is warm season waa xilli diiran ayay leeyihiin. oo xilli diiran sababta ay u leeyihiin waxa waaye iyagu waxay faalka waxay u yaqaaniin markaasi March ilaa iyo May ayay waxay u yaqaaniin markaasi faal u yaqaanaan. waayahay aan kasii gudubno. halka winter jiilaalkan is a very cold, aad u qabow yahay la yiri.
annaga xilliyadaasi qabow waan dareennaa waa sax halkaas ayaan kusii gudbaynaa ereyga xiga waa solution xal solution xalka is a way waa hab to solve aad ku xalisaa problem caqabado there are waxaa jirta many problems caqabado badan weynid waxaan u baahannahay solution xalin ayaa u baahanaa ereyga xiga waa waste lumin waaye to waste inaad lumisaa means waxaa lala jeedaa to carelessly inaad u dhaqantaa markaasi taxadar aan lahayn carelessly aan taxadar lahayn use inaad u isticmaashaa something say all up dhammaan shaygaas inaad u isticmaashaa taxadar la-aan ayaa waxaa la yidhaahdaa lumin tusaalaha waxaa leeyahay turn of the water biyaha dami ayaa la leeyahay markaasi so you don't waste isaadan u luminin biyaha dami yani waxaa la jeedaa tubada ayaa markaas lala jeedaa daminta waa tubada waay ereyga xiga waa wither waxa waaye markaasi haddii wither haddii qicitaanka waxaa leeyahay you use waad isticmaalaysaa wither ayaad isticmaalaysaa when you must choose marka aad markaasi kala dooranaysid between two things laba shay markaad kala dooranaysid wither ayaad isticmaalaysaa tusaale waxaa leeyahay could not decide maanan go-aansan lahayn wither haddii to go left or right haddii aan aadi lahay midig ama bidix maanan go-aansan lahayn intaas waxaa noogu eg 20kii ereyna lagu baraya cutubkeen 17aad waxaan u gudbaynaa beejka 106aad su-aalo ayaa markaasi noogu qoran ardayga ayay tahay inuu xaliyaa si la mid ah markaasi beejka 107aad su-aalo kale ayaa markaasi noogu qoran ardayga ayay tahay inuu xaliyaa waxaan u gudbaynaa beejka 108aad the race for the water ayaa loogu magac daray sheekada halkaa noogu qorani waxaa loogu magac daray the race for the water tartankii biyaha sheekadan waxaa looga dan leeyahay markaasi waxaa lagu soo dhaxlifaaqay 20kii erey nala soo baray ayaa lagu soo dhaxlifaaqay waxaa la rabaa marka si fahamkiina oo kor u sii markaasi aado kor loogu qaado the race for the water tartankii biyaha sheekadani gabi ahaan waxay ka hadlaysaa in dadku ay ku ciyaareen biyihii kadibna uu cirkii la hadlay ku yiri aniga biyo dambe iga heli maysaan yar oo aqli badan oo faahim ah inuu markaasi yiri aniga ayaa cirka la hadlayo waa sheeko iska qiyaali ah markaasi haddii sheekadu waxay ku bilaabanaysaa there was waxaa jiray a town magaalo next u dhow to a river webi u dhow magaalo uu u dhow yahay webi ayaa jirtay the people dadkeedeer halkaasi had a lot of water biyo badan ayay haysteen biyo markaasi uma baahneen but laakiin they wasted it way ku ciyaareen biyihii oo waa ay lumiyeen that arrinkaasini mayd wuxuu ka dhigday iskii cirka angry mid xanaaqay cirka way ka xanaajisay biyihii inay ku ciyaaraan cirka waa markaasi way ka xanaajisay waa iska sheeg waxna la sheegay yani it said wuxuu yiri cirkii if you waste water haddii aad biyihii luminaysaan aad ku ciyaaraysaan I will take it away waan idinka qaadan doonaa from you idinka waa idinka qaadan doontaa you laba mid way noqotaa single iyo plural way noqotaa adiga iyo idinka waa ay noqotaa waxaa leeyahay markaas but laakiin the people that did not listen maysan dhegeysan hadalkiisii waxaa leeyahay when the season markii xilligii janjid uu isbedelay from spring uu iska bedelay markaasi gugii markii laga tago la tagay markaasi jiilaalka la tagay the cloud daruurihii disappeared waa ay markaasi qarsoomeen oo markaas waa ay lumeen looma jeedin the bright ifitaanka sun qoraxdana was hot wuxuu ahaa mid aad u kulul ay ahayd and made wuxuuna ka dhigay the river webigii dry mid qalala qoraxda ifitaankeedii wuxuu ka dhigay iyo kuleelkeediiba webigii inuu guro there was no water available ma jira markaasi biyo la heli karaya people dadkii askad waxay isweydiinayaan when xilliga will the rain fall roobka uu imaan doono the ski cirkii responses wuxuu ku jawaabay jawaabtiisii waxay ahayd you don't appropriate water oo ma aadan maqsuudin ayuu yiri markaasi biyaha idinka kuma aadan maqsuudin you wasted a while lumiseen and now haddana
I will never make rain again mar kale ma soo da'ayo ayuu yiri. A boy will ayaa determined wuxuu go'aansaday that in markaasi this arrinkaas was not a fair inaysan ahayn mid cadaalad ah. He thought wuxuu ku fikiray of a solution xalkiisa inuu raadiya ayuu ku fikiray. He asked waxa warsaday the ski cirka to race him inuu la tartamo. Cunugii yaraayo waxa ku yiri ciryahow ila tartan. He said wuxuu ku yiri if I get to the top of that hill hadii markaasi aan tago buurtaasi meesha ugu sareysa before your rain intaadan roobka oosan imaanin mise roobka aniga iyo adiga bayacni roobka iyo aniga bacidii ku hormarta meesha ugu sareysa ee buurtaasi can form battle ayaa waxa sameynaya ayuu yiri markaasi balle. You must fill our rivers waa inaad markaasi buuxiso ayuu yiri webiga waa inay biyo ka buuxsaan. The ski cirkii laafid waa u qoslay. Later boy will you hear I am the ski ani cir ayaan ahay. I am above everything else wax walibana waan ka sareeyaa. You cannot beat me aniga mi garaaci karto igama markaasi guuleysan kartid. But like in the boy will knew wuxuu ogaa he would win inuu guuleysanayo. When the race began markuu tartankii bilaaway the boy will run forward wuxuu u orday hortiisa ayuu u ordo. The ski cirkiina started isna wuxuu bilaaway raining inuu soo daa on the hill oo ku daa markaasi burti. But like in the battle balligii ayaa leeyahay did not form there halkaasi balli maysan lahayn. meel balli oo biyo markaas cishana meeshan lahayn. When it rained roobkii markuu uu soo daa under the hill oo boorti ku daa the water bihi went down way ka soo daateenba. The ski cirkiina keep raining waa uu daayay. The water bihi flowed waxay markaas u soo qulquleen down house into the river webigii ku soo qulquleen bihi. When the boy markii wiilkii reached uu gaaray the top of the hill buurta meesha ugu sareysa marka uu gaaray wiilkii the river webigii was full waa uu buuxsamay sida uu rabay waa canuga yani. The people dadkiina began waxay bilaabeen to celebrate inay dabaaldegaan. Markaasi it was the highest level wuxuu noqdayba heerkii ugu sareeyay that the river webiga had ever been at before. heerkii ugu sareeyay uu gaaray webiga ayuu noqdayba. The ski cirkana was angry waa uu xanaaqay. A boy will can't beat me ima garaaci kara aniga. I want to fill of your river ma ahayn in webigiina aan buuxiya. It said ayuu yiri cirkii. Now hadda the boy wilkii laafid waa u qodlay. It does not matter dib ma laha ayuu yidhi whether haddii you want aad rabtid to fill inaad buuxisid it ama or not mise aadan rabin. haddaad rabtid inaad buuxisid haddaad rabin macnaba hadda kuma fadhiso. He said ayuu sidaas yiri. He said ayuu dhahay markaasi you already did hore ayaad markaasi webiga noogu buuxisa ayuu yiri. hadda mana ma laha haddaad dhahdaa webigiina ma buuxinayo hadda waa buuxina haddii aad tiraahdaaba. The ski cirkana looked wuxuu the ski cirkii looked wuxuu fiiriyey at the full of river webigii buuxay ayuu fiiriyey. You tricked me waad iqayaantay. It said ayuu yiri cirkii. It asked wuxuu warsaday the people dadkii ayuu warsaday markaasi cirkii dad warsanaaye do you appropriate water now war biyuhu hadda ma ka maqsuudeen ayuu yiri. We want to waste it. waxay yiraahdeen markaani kuma ciyaareyno ma wasaqeyneyno. That is how alone boy sidaasna waxay noqotay sidii canugii yaraa seefad uu ku badbaadiyey his town magaaladiisii aan wan misna uu guuleystay the race tartankii for the water ee biyaha. Page-ka waxaan u gudbaynaa 109 waxaa noogu qoran su'aalahaasuu ka yimid cashirkii hadda aan soo akhrinay. fahamka ardayga ayaa la rabaa in lagu ogaado. halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa cashirkeenii maanta. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.